maxay tahay sababta calanka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya looga saaray qaybta buluuga ya ka dambeeyay arintaasi samxuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya arintaasi amarka ugu soo saaray xilli ma laga saaray qaybta buluuga calanka dawlad deegaanka sidoo kale muxuu yahay shirka ka dhacay xarunta dawlad deegaanka Itoobiya ee Jigjiga ee laga soo horjeeday madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya xogtaasi xogo kale oo muhiim ah halkan kugu wadaagi doona fadlan haday tahay markii ugu horeysay aan soo boqoto soo raac sidoo kale muuqaalka si share garee annagu Soomaaliya kama tirsanin mana nihin waan la dagaalamaynaa waan ka hortagaynaa namana sheegan kartaan idin kama tirsanin isku midna mani xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Jigjiga waxa ka qabsamay shir weyn kaasi oo lagu magac daray annagu Soomaaliya ma nihin guud ahaan boqoqaasha wax garadka isimada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa shir ay isugu yimaadeen maalintii la soo dhaafay ku sheegay inay ka mid yihiin dawladda Itoobiya isla markaasna ay yihiin muwaadiniin Itoobiyaan marka laga reebo sinjihaan inay yihiin Soomaali dadka degan Itoobiya waa Itoobiyaan Soomaali ma aha afka iyo dhaqanka bay Soomaalida la wadaagay waxay sheegeen guud ahaan xilliga inay wax la qaybsanayaan dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale maamul goboleedyada aan yihiin maamul ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale waxay sheegeen sheegashada Soomaaliya xilligan ay sheeganaysa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay tahay waxba kama jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya fariimo kala duwan ay u soo direen iyo guud ahaanba ku sheegeen in xilligan dawladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay inay ka digtoonaato falalka ay sameynayso iyo sidoo kale sheegashada qaldan ay ku sheeganayso dhulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya da fikirka bedelaysa oo la dagaalo kala geeska Afrika ka dhaca u bedelaysa waa Xasan Sheekh Maxamuud dadka in laga qabto waan soo jeedinaynaa iyada waxaan ka tirsanay dawladda Itoobiya waxay mar kale ku celiyeen yihiin muwaadiniin Itoobiyaan sidoo kalena asal ahaan yihiin Soomaali balse dhulka ay joogaan iyagu baa yihiin Itoobiyaan xilligan aan loo baahnayn dawladda dhexe ee Soomaaliya inay sheegasho ku samayso dhulkaasi hadalkan ayaa wuxuu burinayaa hadalkii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sheegay in Itoobiya iyagu dhulku sheeganayaan kaasi oo ula jeeday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xaruntiisu tahay Jigjiga dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya loo ogsoon inuu yahay qayb ka tirsan dawladda Itoobiya isla markaasna si rasmi ah u hoos taga caasimadda dalkaasi Addis Ababa ayaa in badan balanaawulay inay hadal halkaasi ka soo yeedhaan dhanka kale calanka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xilligan guud ahaan laga saaray qaybta buluuga ah ee looga jeedo calanka Soomaaliya isla markaasna dhexda xidhigta ku leh halkaasi oo lagu soo celin doono hashii horu lahaa kadib markii ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abiy Ahmed uu amar ku soo saaray guud ahaan laga tirtiray qaybta calanka Soomaaliya tan ayaa waxay keenaysaa xilligan in dawladda Soomaaliya sidoo kale Itoobiya ay si kala fogaanayaan isla markaasna ay la safanayaan dawlad deegaanka Soomaalida oo dhanka Itoobiya madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar toddobaadkii la soo dhaafay ka hadlayay magaalada Jigjiga halkaas oo lagu qabtay xuska militariga dawladda Itoobiya ayaa sheegay xilliga inay barbar taagan dawladda Itoobiya sidoo kalena ay hil iyo hoob u yihiin ciidamada difaaca ee dalka Itoobiya hadalkan ayaa moodeysay madaxweynuhu xilligaas inuu kula safanay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed haddaba ugu dambeyntii tan waxay meesha ka saaraysaa seen huru soo sheegnay sheegashadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegaysay dadkaas inay ka mid yihiin iyadoo loo ogsoon yahay maamahan iyo khirad ahaanba inuu deegaankan ka tirsan yahay dalka Itoobiya